Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Haddaba maanta waxaan kuu soo gudbin doonaa 5 talaabo oo aad jacayl ugu abuuri karto qof walba oo aad adiga rabto. Haddaba 5 talaabo waxay kaa caawinaysaa in qof walba oo aad u baahan tahay in aad jacayl ku abuurto si fudud aad ugu abuuri karto. Haddaba 5 talaabo ha u isticmaalin si qaldan maxaa yeelay wax walba oo dhib ayaa ka imaan kara. 5 talaabo haddii aad tahay qof aan ku abuuri karin qofka kale jacayl, 5 talaabo haddaad isticmaasho waxaad noqonaysaa qof furfuran oo qof walba jacayl ku abuuri kara. Do that one dance, baby. That one dance. Qodobka koowaad, badanaa ha lagu arko. Haddii aad tahay qof badanaa aan la arkin, qofka uu ku iloobayaa oo niyadiisa mar walba uu ka saarayaa maxaa yeelay waxaad tahay qof badanaa aan la arkin. Taasina waxay sababaysaa in qofku ku iloobo ama uu ku hilmaamo. Marka waxaa lagaga baahan yahay in mar walba aad istusto qofka aad jeceshahay, si mar walba aad u joogteyso la kulanka qofka aad jeceshahay. Qodobka labaad, waa inaad ka farxisaa qofka aad jeceshahay adigoo u keenayo hadiyo aad u qaali badan, geenayo meelo dalxiis ah iyo meelo lagu damaashaado si jawi macaan u soo qaadato ayna u farxdo. Kadib wuxuu dareemayaa qofkaasi in aad loo jecel yahay isla mar ahaantaana la xiiseynayo. Kadib waxay danta ku qasbaysaa in noloshiisa ama nolosheeda uu kugu hibeeyo. Kadib labadiina waxaa idin dhexmarayo nolol aad u macaan iyo jawi aad u fiican. Waa inaad mar walba ka farxisaa qofka aad jeceshahay si aad ugu farxan lahayd. Haddii dhibaato fara badan ay ku soo wajahdo, waa inaad qaabishaa dhibaatooyinkaas si noloshaada iyo nolosha qofka aad jeceshahay aad u nuuriso oo aad u iftiimiso. Taasina waa muhiim in mar walba aad ku dadaasho qofka aad jeceshahay si aad farxad ku siin lahayd. Haddii aad mar walba farxad siiso, qofkaas marnaba kuma iloobayo oo uu ku soo xasuusanayaa haddii aad kala tagtaan xitaa. Waa inaad mar walba u keentaa hadiyo qaali ah iyo meelo ay ku damaashaado aad geysaa, sidoo kale aad ka qaadataa nolosheeda door muhiim oo aad u macaan. Qodobka saddexaad, iska dhig mar walba qof furfuran oo caadi ah. Haddii dadka ay kugu arkaan adigoo xirxiran, aan hadlaynin, dadka aan dhexgalaynin, bulshada aan la dhaqmi karin, cid ku jeclaanayso ama cid ku soo raadsanaysa ma laha. Ilaa adiga ah qof xanaaq badan oo aan furfurnayn. Waa inaad iska raadisaa furfurnaansho iyo hadal badan iyo qosol iyo kaftan. Taasna waxay sababaysaa in qofka hore uu kaa jeclaado. Waa inaad iska dhigtaa qof furfuran oo habi ah, lana dhaqantaa bulshada iyo dadka oo dhan. Taasna waxaad ku heli kartaa gabdho fara badan iyo jacayl fara badan. Qodobka afaraad, waa inaad ku kalsoonaataa qofka aad jeceshahay. Haddii aadan ku kalsoonaanin qofka aad jeceshahay, taas waxay sababaysaa in meesha uu ka dhasho isfahan la'aan iyo dhibaato fara badan. Taasna waxay sababaysaa in meesha lagu kala tago midba dhanka uu aado. Waxaan kugula talinayaa in qofka aad jeceshahay aad kalsooni buuxdo aad ku qabto si noloshaada iyo mustaqbalkaaga ay u hagaagto, kana dhigato qofkaas qofka nolosha kula jaan qaadi lahay. Qodobka shanaad ee ugu dambeeya, markaani waa markii ugu dambeeyay ee barnaamijkeeni maanta. Qodobka shanaad waxaan ku soo qaadan doonaa sheego jacaylkaaga. Haddaba waxaa jira meelo munaasab ah lagu sheegto jacaylka, balse haddii aad jacaylkaaga ku sheegato baraha bulshada social media sida Facebook, Instagram, Twitter iyo iimaha iyo WhatsApp-ka, meelahaas munaasab maaha in jacayl lagu sheegto. Xitaa qofka kaama aqbalayo haddii aad dhahdo waan ku jeclahay, maxaa yeelay wuxuu arkaa wax iska ciyaar ah oo aad kula kaftamayso. Waa inaad jacaylkaaga ku sheegataa meel munaasab ah, sida waa inaad u sheegtaa qofka asigoo ku hortaagan, waana ku ballamisaa meel muhiim ah. Ku ballami meel muhiim ah oo qaas kuu ah, kadib si lama filaan ugu sheeg jacaylkaad u qabto qofkaas. Haddaba intaas ayaan ku ekeenaynaa barnaamijkeenii maanta ee aan uga hadlaynay 5 qaab oo aad qofka jacayl uga abuuri karto. Haddaba intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe, like, share and comment aad saarto channelka Somag App.
waa anigoo ah Nuurdiin waxaan ku leeyahay ku guuleyso jacaylkaaga macaan.